halkan awaamirta ka sii ada boqornimadiina dooni maayo bilaadir maxay macna sameeyni dad aan diintii haysan oon ku dhaqmaynin oon fahmaynin oon inay u gaajoodaan diyaar u ahayn inay u go'aan diyaar u ahayn inay ku walaaloobaan diyaar u ahayn inay isku xukumaan diyaar u ahayn cadow inay iskaga dhiciyaan aan diyaar u ahayn reere iyo daamo qabaa'il iyo juqraafiya isku wada haysto iswada nacay maxay tari marka aad tiyaad barlamaan iyo diin baan ugu tagay meeqa ku dhageysanayaba ilaa ay dadku diinta qaataan iyo ku dhaqmaan oo isjeclaanaan oo iyaga ay ka soo dhex baxdo waxay ku tar dalika goorma dhaalimka la halaaga liman bay usugnaatay khaafa maqami absida ilaahay marka idinku dhex faafto wa khaafa waciid goodintana qofka ka baqa ayaan u halaagi doonaa dhowr iyo kontonkii dhowr ilaa 60kii ayaa wadaado Masar lagu laayay aad baa loo gumaaday diin ilaahay baa lagu laayay Allah wax kale oo geysteen ma jirin waa ikhwaan muslimiinkii wali ظالمين baa u kacay dumarkoodii baa la kufsaday hantidoodii baa la dhacay culimadoodii baa la laayay sheekh kamida culimadoodii kamida jeelka ku xidhnaa ayaa lagu xukumay daldal in la daldalo oo la dilo aroorta la dilaya wadaad baa markaa u yimid in aroorta lagu dilayaaye shahaadada qabso ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammad rasuulullah dheh kaasuu ku yiri adigu kelmadda waad ku shaqaysanaysaa mushahar baa lagu siinayaa anigana iyadaaba la idilaya awgeed aw tahzau bidiinillah diinti ilaahay baad ku ciyaaraysaa adigu mushqaayad baad ku qaadanaysaa mushqaayad ajr iyo waxaad ku leedahay kelmad وانا اقتل من اجل الله ظالمين تجرتي بريغا الى يوم القيامه انت ظالمين تجرانا ايدا ان با قبنaysa lanuhlikan الظالمين marka iimaankaagu sugan yahay ee diintaadii aad ku dhaqan tahay laakiin ummadii laga dhax arkayo dhaqankii diineed laga dhax arkayo ayuu gurmadku ilaahay imanaya nabi maxamed dhageyso ilaahay wuxuu ku yiri subhanahu wa gabagabeynaya laba aayadood ba ay hadhawaan waa hadhaynay وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين نبي أشهر صلى الله عليه وسلم مركي وحبك قاضي وايين ضوض وحكي قاضي وايين قودي وحكي قاضي وايين لالوش وحكي قاضي وايين دليعين وحكي قاضي وايين ayaa waxay doonaan imika inay jirkiisa dhaawacaan nabiga inay dilaan bay isku dayeen sallallahu alayhi wasallam markaas ilaahay wuxuu yiri uga sheekee xilli ay dhagartaada u shirayaan gaaladii inay ku xiraan jeel inay ku dilaan ama magaalada ka mustaafiriyaan oo markay dhagartaa iyo waxa maluuqayaan إلهي ميو كم مقيه إلهي ميارو أجين بوليه أنا قوم مقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ورد سووا مدينة جوجو دينتي قيام النقطي ويفافتي ها أي إنتي سي أتم النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة أتم أبو بيتر ماي عاشا أتم حاسك النبي أتم صلى الله عليه وسلم رسولك ويدين الساعة رسول الله ما ننتهي كوجو درنيد نولا شارع ما ننتهي كوجو حنون بدنيد أنت دينتي دعوة ودي markaasuu yiri maalin baan kacbada hadkeeda doonay inaan ku tukado buu yiri anoo ku tukanayo foorara ayay quraysh guurtideedii halka ku shiraysaa waninka ku foorfoorsanaya kacbadu waa ayo waninkii nabiga sheegtay markaasuu ninka uu yiri bal waxaan ku sameeyo baleega intuu tagay meeshii xoolaha lagu qalayay ayuu uuskii xoolaha soo qaatay نبي محمد وفور صلى الله عليه وسلم بؤوسكي أرتي وحيد ماذا حكى شو النبي صلى الله عليه وسلم أسوق على النبي صلى الله عليه وسلم إذا تيجي فاطمة يسوع ردي بيو بكاسب بلوضين وحي نبر كي أوسكي وحي كقاضه بكاس إذا تيجي أويدي بيو النبي محمد صلى الله عليه وسلم بكاس أقول أبا وروري هأوين ما على أبيك بأس أباها wax dhib ah ayaa male tiintii ilaahay baan maxay tolo oogaya maalin iga kuleyn duno maxamed majirta sallallahu alayhi wasallam isku dayeen
inay nebi maxamed gacanta saaraan sala allahu calayhi wasalam laakiin waa sugnaaday saxaabadiina way ka daba sugnaadeen nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam dadka oo aad raali geliso oo aad ku raali gelisid diintaada oo aad nusqaamisid dadka oo aad raali gelisa oo aad ku raali gelisid diintaada oo aad nusqaamisid cadho ilaahay baad ka qaadan ilaahay oo aad raali gelisid ood ku raali gelisid dadku wax ay ku cadhoodaan ilaahay maqaamkiisa dhaxli